munaasabad ballaaran uu kambaniga caalamiga ee Daawus ku qabsaday hotel abka magaalada Burco taasi oo ku soo bandhigay waxqabadkiisa iyo waliba kaalinta uu bulshada kaga jiro isla markaasina uu abaalmarino ku guddoonsiinayay dadweynihii ka soo qayb galay munaasabadaasi waxaana kambanigan uu ka shaqeeyaa Somaliland Soomaaliya maamul goboleedka Puntland Kenya Tanzania Uganda Oman iyo waliba Imaaraadka Carabta iyadoo kambanigan laga aasaasay dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota taariikhdu markay ahayd 2010 shirkadani ay ku caanbaxday xafaayadaha caruurta oo lagu sameeyay dalka Mareykanka bilan fiyoray iyo waliba alaabo kale oo fiican hooyada iyo dhalaankeeda waana kambaniga kaliya ee keena alaabooyinka u khaaska hooyada iyo ilmaheeda sidoo kale kambanigani waxa uu caawiyaa dadka qaba xanuunka dhimirka ku sugan dhakhtarada lagu daaweeyo dadka qaba xanuunkaasi munaasabadani ay soo buuxdhaafiyeen haweenaadu tiro badan kuwaas oo kambanigani si gaar ah ugu shaqeeyo hooyada iyo dhalaanka iyo waliba mas'uuliyiin ka socotay kambaniga caalamiga ee Daawus munaasabadani intii ay socotay waxa lagu soo bandhigay waxqabadka kala duwan ee kambanigani caalamiga ee Daawus uu qabto iyo waliba kaalinta uu bulshada kaga jiro intaasi kadib munaasabadani waxa la ka soo jeediyay maamulaha shirkadda Daawus Company faraceeda magaalada Burco Nimco Cabdiraxmaan Maxamuud taasi oo bulshada gobolka Togdheer ku boorisay inay si joogto ah ula xiriiraan shirkadda Daawus Company shirkadda Daawus waxay u kala qaadaysaa bulshada iyo مشينا على تيار السرير لنروح تيار يجي من جبلي وحلاقي تقديم محلات سبحان أيوه كذا يسوي chance كاي نتيجة كذا داوس تاسو مين طريقة المسيح وهلين لا نقول شركة داوس معني شركة يساعدين kale waxa iyaguna munaasabadani hadal ka soo jeediyay haweenkii kala duwan ee ka soo qayb galay munaasabadaas iyagoo mahadnaq ballaaran u soo jeediyay kambaniga Daawus isla mar ahaantaana uga mahad celiyay kaalinta ay bulshada kaga jirtay iyo waliba sida hagar la'aanta ay ugu shaqeynayso bulshadeeda ugu dambeyntii waxa munaasabadaasi soo abmeeray madaxa shirkadda Daawus Company Cabdiraxmaan isagoo bulshadii halkaas isugu timi u sharaxay waxyaabaha ay ku caanbaxay kambanigan iyo waliba wax soo saarkiisa dashboardkooda gudaha inuu ku dhalaaliyo waana caraf badan yahay meesha intaad wax ku buufiso respiratorygaaga dhaqaatiir badan baa ku jirta aad neef markaad AC-ga shida board aad liqi lahayd kanaad iska marinaysaa isaguna waa mara qoyan waxaana laga helayaa isaga oo keliya meelaha baabuurta birahada lagu gado kan horaan idinku sheegay waa waybkii carruurta marka xafaayadda laga bedelayo meeshii waddanku biyihiisu waa qabow aad ilmaha biyo qabow marin lahayd please hooyooyinka waxaan jeclaan lahayd in kanay ka mariyaan waayo waana soft ilmaha jirkiisa loogu talagalay saxarada iyo kaadida isaga ka mari saddex arrimood bay dheeryihiin caanaha waddanka yaal dhagihiinna ii fura galabta caagadaas ilmuhu wuxuu cabayaa 1 sano laga bedeli maayo furka buluuga leh ee goolka leh caanaha waddanka yaa sideeyeen 6 bilood haddana daasad kale 6 bilood haddana daasad kale maya tan waa 1 sano sanadka labaadna wuxuu gudbayaa taafurka buluuga leh way ku qoran tahay stage 1 iyo stage 2 waxay kala dheer yihiin caanayowga kale sonkor waa ka mamnuuc caanahaas shaqada waxaad tiraahdaa shaqada aan loogu dhiibo gabadh saan ula xashashaqno arrimaha iyaga ugu sheegano nimcaan u dhiibanay nimcaa ka warbixin alaabtii aynu ku ballanay horaanteedii waa tan galabtana waxaan idiin siinayaa caadiyad inaad soo tijaabisaan weli waa fiyoore waa kii aan hadda ka hor idin sheegnay oo hooyadu ama gabadhu markay xaflad aadaysay kareen iyo alaab ismariso fiidkii markay gurigeeda u soo noqoto haddayba saaxiibadeeda aroos ka soo noqota ama xaflad saan oo kale ama odaygii yidhahda hargeysaan ka soo socdaa caawa rabtane boorta kaga istaaga markay dhammaysato hawsheeda whatever waa kii ilay kuma seexan karto kiimikadii ay ismarisay
waa kii ay wejiga iskaga marin lahayd. gabagabadiina waxaa halkaasi lagu guddoonsiiyay hadyadihii kala duwanaa ee loogu talagalay bulshadii halkaasi isugu timi. وبرواقة آدم محمد شبكة عالمية أود وين نيوز مقالة برعو.